daawad yaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii barashada af Soomaaliga aad kala socotaan talaadada saacada marka ay tahay 5 fiidnimo ee London aan ku soo qaadanaa alaaba barashada af Soomaaliga naxwaha iyo kii barashada caruurta isna inoo dhiman naxwaha baan ilaa hadda wadnaa oo aan dhowr darsi ka soo deeyay halkan ku saabsanaa guud ahaan magaca sida marka la qeexayo af Soomaaliga waa maxay magac la Ingiriisku kale waa noun oo kale ama Talyaaniga kale yani kikoze il nome marka barashada guud ee naxwaha af Soomaaliga magacaan soo qaadanay qodobaan soo qaadanay magacyaan soo qaadanay laakiin caawa waxaan doonayaa maadaama farbarashadii caruurta inuu dhiman tahay oo farsamada awgeed howlo ay nooga xiran yihiin oo soo gali doona isagana caruurta Soomaaliyeed halkaan aan ku bari doono farbarashadii ayaa waxa yani caruurta Soomaaliyeed waxa la iga codsaday waan sheegayaa in lagu yiri fadlan teacher always yani markaad start garaynayso programka Soomaaliga ah please ma akhrin kartaa ma sheegi kartaa Somali alphabetka ba taada noogu furi kartaa yes aan leeyahay habaan idoo oranay caruuray barnaamij kasta oo aan sheegayo oo ku saabsan naxwaha ama farbarashada caruurta waa idinku furi doona hadda ka bacdi xuruufta Soomaaliga shibaniyaashii shaqalada baan ku furaya marka saas baan idin samayn doona barnaamijkan idinka iskale oo afkiina hooya way umadan afkeeda horumar umadan afkeeda jeclaan umadan afkeeda ka shaqeyn umadan afkeeda yani horumarin oo aan ku faanin dhaqankeeda hidaheeda diinteeda meel kale ka hormari mayso waxbana ha iswareerinaha waqtiga la iska qaaday haddaad afkaada jeclaato hidahaada jeclaato diintaada jeclaato quraanka jeclaato af Soomaaligaada dhaqankaada huga dhaqanka dharka dhaqanka haddaan aragno barnaamijyo huga dhaqanka ah dharka dhaqanka lagu soo aroosyo lagu soo bandhigayo huga dhaqanka gabar iyo wiil isguursanayo wada dhaqankii Soomaaliyeed siid barnaamijyo inaan qabano degmooyin kala duwan oo Europe meel kasta noqoto huga dhaqanka BBC lagu soo bandhigayo BBC lagu soo bandhigayo Jazeera lagu soo bandhigayo leeyahay ummadda Soomaaliyeed haddaad afkaada ku faanin oo aadan afkaada yani aad caruurta baran waxa weeyaan waa waqti lumis weeyaan marka waa dadaalayna afka siiyo yani afkeena uu noqdo af xoog leh suugaanta lagu qoro tixday tiraabtii wax walba lagu soo horgeliyo marka caruuray waxaan sameeynaa caawa sida idin ballan qaaday barnaamijka farbarashada waa idin dhiman yahay dad badan baa sugaya waa la socdaa kii naxwahan baan hadda ku jirnaa marka bal xuruufta af Soomaaliga xuruufta la yiraahdo af Soomaaliga alfabetadana waa la yiraahdaa alfabetana waa la yiraahdaa xuruufta Soomaaligana waa la yiraahdaa far Soomaalina waa la yiraahdaa saddexdaa baa la yiraahdaa marka far Soomaali xuruufta alfabetka kullu waa la isku yiraahdaa marka adduunka afaan xuruuf lahayn ma jiro marka waad soo ogtay xuruuf kasta ee adduunka jirta yani waxa ay leedahay shaqalo iyo shibana bay leedahay marka caruuray shaqalo iyo shibana bay leedahay waalidow shaqalo iyo shibana waad garanaysaa marka waxaan leeyahay caruurta hadda waxaan idin akhrinayaa shibanayaashin caawa leeyahay yani dalbateen marka start garaynaysid noo sheeg alfabetka xuruufta akhri yes ba akhrinaya marka على با تا جا ح خ د ر ص ش ض ع ج ف ق ك ل م ن و ه ي وكاسا marka caruuri markaad dhageysanaysaan waxay u dhigantaa like English language ka markaad baranaysaan oo reception class ka ah ama year 1 ka tagtaan yani English alphabet ka markaad baranaysaan u dhigantaa the sounds al yiri xaq markii la barayo oo waad ku haystaan waxaad tiraan A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T V W X Y Z waad ku haystaan marka laakiin marka waxaan isku dhawaaqa markii la barayo sounds ka yihiin waxaad u bartaan sida hadda Soomaaliga kale hadda Soomaaliga markay akhrinay ciyalka Ingiriiska wixii ilmaha Europe Ingiriiska halkan badan waxay leeyihiin macna Ingiriis ba way ku English sounds weeyaan Somali sounds weeyaan caruuray marka ku soo celinaya marka ba ta ja ha kha da ra sa sha da a ga
ف ق ك ل و ه ن اساسو كلا exactly سيدي انجليزي يريسا marka caruur idinka iskale waalidiinta Soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan ama meel kasta aad joogtaan saasoo kale inaad xuruuftii muddo badan idinka maqnayd inaad saasoo kale u barataan oo aad tiradaan ba ta ja ha kha da ra sa sha da ga fa qa ka la ma na wa ha ya marka taas waxa shibanayaal baa leeyahay marka shibanayaasha waa like English language ka aad bartay consonants leeyahay marka i consonant in Italiano marka shibanayaashaas caruuray marka waa xuruftiina weeyaan Soomaaliga marka waa kala qaada marka isku ma daro shibanayaasha iyo shaqalada isku ma daro marka shaqalada gooni oo qora waa separate weeyaan English language waa a oo ka bilaabo a b c Soomaaliga laakiin male ba ta ja ha kha da ra sa sha iska yiraahdo marka caruuray marka shibanayaasha waa kaasa waa mar labaad saddexaad baan ku soo celinaya waalidiinta si hadhowdi ma taqaan u qortaan ay inkastoo barnaamijyada soo socda ay weli aan ku soo qaadan doono kiini farbarashada caruurta laakiin caawada idinka codsaday marka waxaan leeyahay ba ta ja ha kha da ra sa sha da ga fa qa ka la ma na wa ha ya waa shibanayaasha waxaa jira marka shaqala jira marka shaqalo Somali language ka shaqalo yira caruuray shaqalo waxa waa vowels baa u taqaan idinka a e i o u alira marka vowels Soomaaliga marka shaqaladiisa waa 10 wuxuu qabaa 5 gaagaaban iyo 5 dhaadheer buu leeyahay marka 5 gaagaaban waxa kala yihiin a e i o u waxa la yiraahdaa short vowels ama kuwa gaagaaban baa la yiraahdaa 5 gaagaaban wuxuu leeyahay hadana 5 dhaadheer uu leeyahay marka ku yala dhaadheerayn dhaadheer laga dhigaya marka oo ah a e i o u a e i o u macallinka caawo leenay uu leeyahay taasi waa language afkaada weeyaan waa xuruuftaada weeyaan af Soomaaliga marka shanta gaagaaban shaqalada a e i o u kuwa dhaadheer a e i o u waa kaas ka shan gaagaaban shan dhaadheer 10 kaas la isku yira Soomaaliga wuxuu leeyahay marka 10 shaqalo leeyahay ama 10 vowels ama dh vocali oo yira ama marka iyo shibanayaasha soo shibanayaasha shaqalada marka waa la kala saaray Soomaaliga oo iskuma jiraan sida Ingiriiska kale marka separate la kala dhigay marka caruuray intaas idinka iskale oo waxa loo baahan marka yaani markii barnaamij hadhowda farbarashada caruurta aan bilaabo oo aan sawirro soo qaato oo aan alfabetkaas aan ku ciyaartay caruurta sawirradii aan ku soo bandhignay halkan oo editing ay bilaabato ayaa hadhowda marka la rabaa inaad barataa marka baadi ku soo celinaya ba kama daaleyno afkeena hooyo weeyaan oo aynu isku afgaranno oo aynu ku hadalno oo aan tafsiirka ku bixino tixdii tiraabta lagu qoro suugaanta lagu qoro yaani tiraabtii lagu gabayadii geeraarkii masraxiyada lagu qoro oo lagu jiliyo idaacadaha lagu soo bandhigo telefishinada hadda looga soo jeediyo maartay maxal raadiyaha looga hadlayo waa afkeena hooyo weeyaan afka fiican adduunka aniga xaggayga ma jiro Soomaaliga anigana muran buu yahay nin walba adduunka afkiisa number 1 oo ah ama kow oo amarka markaad afkaada ku faanto oo aad ka faan afkaada caruurta guriga bar waxa la sheegay dad aan caruurtooda guriyaha af Soomaaliga yaani af Ingiriis looga hadlaba banaanka wadada markay marayaan oo ilmaha la jiidayo aniga aad baan u dhageystaa yaani Ingiriis baa lagu hadlaa sit down wariya come here stop shut up ala leeyahay ya waalid daatira shibde amos kala halkan fadhiiso inta baa kugu filan waa gar karaa sababtoo waxa bulshadii aniga xoog badan oo ma artay aad iyo aad nooga xoog badan marka qaybtaas waxa iskale maxaa la yiraahdaa caruurta hawada oo iga codsato leeyahay wadada maray teacher markaad start ku soo celinaya aad baan u jeclahay canugaas saa igu yiri wuxuu teacher markaad start gareynayso Somali oo yiraahdo waxaad ku bilaab please can you start ma ku bilaabi kartaa Soomaaliga oo soundskiisa baatada
ها أنا وأكون بالله هاي وكسبت عود ومركب وأكون بالله مركب وكسر عليا مركب با تا عنو قاس وين يسري عاوش فنيا مركب با تا جا ح خ دا را صا شا ضا ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي وكو إلى باتن ويا مركب عروري كو إلى باتن كوحار عسن مركب همزة رأسا الله بيلا باتنكو همزة ده مركا والأبوستروفوم اللي هنا ومدير حق كم أكلوين عروري مركا إريا كوركا كفوشا فاولس كيك دوش سركا ساران تهب سي أي وحوجسو وسترس كريسو وشيدو وحكم ده مركا إريا لا آن مركا لا جو يبقى أن إيو وحاسو كلا مركا ولا ساسو كلا أي مركا كاسا الله بيلا باتنكو marka sidaasoo mataqaana yani afkeena mataqaana yani uu yahay af mataqaana yani xuruuf leh oo shaqale iyo shibana leh oo mataqaana yani shaqaladiisana 10 waa 5 gaagaaban iyo 5 dheer ayuu asagana mataqaana yani ka kooban yahay waana soo sheegnay waxa loo baahan marka waana saale wuxuu ku qoran yahay afkaas wuxuu ku qoran yahay laatiino ku qoran yahay sida carabiga korna waa lagu dhawaaqa waxa la laatiina ba ta ja ha marka la carabiga waa dhawaaqi laakiin marka la qoro be like bravo qorisa tango bravo tango ka x-ray maxaa la jira Rudolfo saaso sida international phonics ku kala marka waa afrij oo ma aragtay oo u baahan laakiin dadkiisu inay mataqaanaan hadda afkii wuxuu leeyahay oo dadkayga waa inay igu hadlaan afkartaan oo maartay wax walba ugu doon afka marka wuxuu taraa caruuray waxa waaye inuu la isku gaarsiiyo communication isku gaarsiiyo oo la isku hadlo oo mataqaanaa in la isku fahmo marka dhibaatada ka taagan marka qurbaha wax kale ma ahan waxa weeyaan qofkii waxa u sahlan marka qaarkood inay ingiriisi inuu soo tuuro Soomaaliga u goyniyad moodaa marka la hadlayo arin marba ku dhacda haddii kale waxa la erigay baad ku weynaysaa xataa Soomaali marka ingiriiska kaaga fudaanay hadaad baxoga marka ama Talyaani ha noqdo ama reer meel kasta Soomaali ay joogto xogaa waxa marka dadkii saameyn ku yeelanaya ama aragtay soo jiidanaya afafkiiba marka laakiin waxa loo baahan yahay in ka hortagno dagaalano oo aan muujino ma aragtay annagana xageena dadaal dheeraad in la muujiyo caruurta oo la muujiyo marka qaybtan oo koowaad oo aan ku soo qaatay shibanayaashii iyo caruurtii iyo ku fogaaday markay caruurta aadan u jeclahay barnaamijyada 4 years soo wada 5 sanadood farbarashada caruurta waa dana taana yani buug farbarashada caruurta qoray oo yar oo caruurta laakiin wax u taraya marka barnaamijka asaliga ugu soo talagalay caawa waxa weeyaan mid aad u jeclaan doontaan oo ku saabsan sarfaha ku saabsan marka وانا لاين كان وايدين فوري دونا وwaxaan doonaya inaad igala sheekaysataan oo xagga alfabeetkii iyo wixii dhibaatadii kala kulantani sidaad u aragtaan xurufta Soomaaliga shaqalada iyo shibanada iyo marka dalkan soo gashay magacaada hadaad ku qortay Maxamed X hadaad ku qortay iyo hadaad qortay maxaa dhibaato la kooda Maxamakis Salakis Aksamakis ma kugu dhacday weliga inaad saas qortay Salakis Maxamakis ma lagu leeyahay adoo dhageysana magacaada ma garaweyday أتدا أفرد ملقوير ورمقعاء فتري مركز صالح محمد أحمد بالين بركي حق ما قرط عروفتي سومالي هل كان مركز صوغ شوف عسبت يور مركز تمت أما أمريكا أما الولب مركز في سومالي قرط محاد إذا توت كلو كورنت تصنوا تلفون هذا كود سويدا السوق اللي دونا وحن مركز جعل الله حق عروفتي إن أنا أقول يعني ريك هلا وآد أجعشهين وإن سوقات الربطة ولكن قيبتاس حق اللينغويستيك علم أفاتي كترسنتاي أو صرفها حق صرفها لي الصرفة اللي مركب صرفان سوق هذا يا عاوة صرفها اسمرك بحالوي ده in English language morphology in Italiano la morfologia of Dutch di morfologie مركب morfologia وحواي وبرشادة إرجع إريك كست هالنقطة إريك كستو لكن سوماليا عاو كحلنا برشة إريك سوماليا أنت هوريك الراعة لحظة كنكش كذلك كنكش بدل كيس أي لقوا برتا علمي كمورفولوجي وحلقوا برتا ديريفيشن كا دي بكابياشا لينا إنفكس سفكس إبرفكس وحيالها سالينا
marka ereyga Soomaaliga maxaa dhaxda ka galo maxaa si isu dhax galaan waxa ka samaysmay Soomaaliga marka waxaan soo qaadanayaa sarfahaas caawa waxa loo yaqaano lamaanayaasha afka qalaad waxa lagu yiraa dadka yani wax soo bartay way lamaanayaasha waxa lagu yiraa compound nouns in English in Italian waxa la yiraa i nomi composti marka Soomaaliga waxa la yiraa lamaana u bixin marka lamaanaha waa laba magac oo la isku daray si hal magac oo u dhalo marka laba magac oo la isku qabtay la isku nuday hal magac la isku ka soo baxa marka halkaas magac wuxuu leeyahay macna ka duwan labadii oo la isku qabtay marka lamaanayaal baa la yiraa lamaanayaasha compounds ama ishaq composti ama ishaq vorter setsong waxaan tusaalahan soo qaadanayaa marka ereyga ilbaxan tusaale ilbax wuxuu ka kooban yahay labo il iyo bax la isku daray waay marka hadda waa wax la yaabo ereygaas il iyo bax marka aynu kala qaadno macnay leeyihiin oo gooni ah il waad naqaanaa baxna waa bixi waay marka laakiin markii la isku qabto labadoodii oo il oo magac ah iyo bax oo fal ah la isku daray il bax la isku qabto marka il lagu daray bax waxay la mid tahay il bax waa macnaha il bax waa marka macnihii hal markii loo eego hadii la kala qaado macna ka duwan il bax ereygaas uu leeyahay marka il bax marka lamaana ka saaliira marka il iyo baxa la isku daray bal arag ishiyaan soo qaadanay baxaan ku darnay il bax macna kale leedahay il bax marka waxa weeyaan waa il baxnimo waa qof yani xadaarad nolol kale ka soo gudbay ee ka duwan mid hadda uu soo galay oo xoogaa tii hore ka sareyso ka sahlanaan badan laho qalab laho guri laho baabuur laho diyaarad laho iskuul laho waxbarasho laho kaba kooyo laho shaar laho jaaka laho garbaati laho computer laho barlamaan laho wasiir laho kursi hada waxa la isku ilbax baa leeyahay marka waa civiil waa marka ama la civilized ama civil ama ergas civic xukuumada soo marka runtii ereyga ilbax marka macnaheedu waa qof ishii baxday ma ahan fud ay ka tiri ma ahan ilbax marka ilbaxnimo markii lagu daro waa marka wax ergaas marfu wax u sameysmay compound-ka lamaanaha il ilbax nimo ku dar oo kaaba ah ama suffix ah magac weyn oo dhalay ahaansho ilbaxnimo leeyahay marka the essence of being a civilized saasoo kala malina l'essence di essere civilizzato marka ilbaxnimo waxa ajaab le marka qolo marka al-hadari dhahdeen qoba civilization qola civilization leeyahay qolo wal marka wala baxday anaga marka ilbaxnimo waaba soo koobnay Soomaalida waxaan ishii iyo baxan isku darnay ishaan baxday macnaheedu waxa uu qofkan waxba u baxay nolol kale uu dhaxgalay meel kale ku orday saas marka ilbaxnimo marka ilbaxnimo marka lagu leeyahay Soomaalida dadka marka oo aan ilbaxnimadaas lahayn oo ka yimid meeshii ilbaxnimadaas ka baxsan ya waxay dadkii ilbaxnimada ku dhaxdashay waxay arkeen marka dadkii aan ku dhaxdal ilbaxnimadaas aan qoon soo dhaxgalin oo sarwaal iyo shaar iyo kaba iyo wixii iska qaateen ma way u mahmaahayn marka waxay ku yiraahdeen dhar magaalo sida loo qaato way sahlan tahay laakiin dal magaalo sida loo noqdo way dhib badan tahay waa runtoodo yaani nin hadda soo galay magaalada oo suud qaatay waa ka muuqataa inuusan ahayn nin reer magaalo ama ciyaal boondeer ahayn ama ciyaal xamar weyn ahayn ama ciyaal elgab ahayn ama ciyaal magaalo inuu ahayn waa la fahmaa oo suudka laakiin ninka ku dhashay magaalo ku dhashay oo isbitaal ku soo barbaaray oo primary wax ku soo bartay oo baaw soo dhaxgalay oo secondary ku soo dhaxbartay ama ku soo shaqeeyay ama wax dhisma ka soo shaqeeyay ama wax walba soo qabtay marka waa garanaysaa xadaarad inuu leeyahay ilbax inuu yahay waad garanaysaa taas laga wadaa marka ilbaxnimadii marka waxay tahay dal magaalo sida lagu noqdo waa dhib badan tahay laakiin dhar magaalo sida loo qaato aad bay u sahlan tahay marka erga ilbaxnimo
oo ma aragtay wuxuu ka kooban yahay waa lamaane marka caawada lamaanayaasha aynu ka hadlaynaa marka yacni il iyo bax laysku daray ilbaxnimo ilbax qof ilbaxa oo reer magaala sida aad u taqaanaan weyn marka ilbax marka waxaa kasoo horjeeda erey kale oo asagana la yidhaahdo oo dadka badana oo qalad ay ka fahmeen reer baadiye waa reer baadiye caytan ma aha reer baadiye reer miyi caytan ma aha aflagaada ma aha oo ha ka xumaana marka lagu yidhaha reer miyi baa tahay laakiin waxaad uga xumaana waan ku garan karaa adigoo sarwaal iyo shaar iyo kaba iyo jeans adduun wadatid London dhex socdaa waxaa lagu leeyahay reer miyi baa tahay meesha asalkaadi aad ka soo jeedo weyn ha ka xumaana xataa haddaad darrab u tahay lagama xumaado sababto waa maxay soomaalida 75% waa reer miyi 25 kalluumaysatay iyo beeraley bay u kala baxan waa habka dhaqan dhaqaale Soomaalida ay u kala qaybsan tahay way marka ka xanaaqan reer miyi hadii lagu yiraahdo reer baadiye hadii lagu yiraahdo sababta waxa weeye wax kale ma ahan adiga wax walba asalkii iska laho adiga wax walba ka soo jeedaan adiga ka xoog badan midka reer magaalada midkan ilbaxa marka the opposite ka soo horjeedka ilbax waxa weeye reer baadiye ama reer miyi erga marka reer iyo miyi waa lamaane marka laba waa reer magac lagu daray waa reer waa magac miyina waa magac lagu daray wuxuu reer miyi kambaan buu noqday magac lamaano reer miyiga ilbax qodobka soo qaadana fiir ilbax nimaada reer miyiga ka daadaas hatta lamaanayaasha markay isku darsamaan ay macno kala abuuraan qodobaday qaataan marka reer ilbax marka lagu leeyahay oo ama reer miyi ama reer magaalo waa qayb daraasaad morphology-ga lagu barto oo ma aragtay xagga lamaanayaasha in English language hadii grammar-da any book grammar-iska aad furto buugta waxa laga barto ama if you google it waxa leedahay English compounds qara ama compound nouns saasoo kale compound nouns qara waxa ku soo baxa ayaala farma ku soo baxay inkastoo English compounds ay u badihiin ma aragtay maxaa la yiraahdaa noun plus noun ama noun plus adjective kan Soomaaliga waxa jira magac iyo sif iyo waxa jira iyo fal ajir sida hadda kale ilbax oo kale markay bax markaan waxa waaye waa fal waaye marka ilbaxnimada marka waa qof yani taas waa semantic field-ka weeyaan xagga macnaha semanticada marka ilbaxnimada la macneynaa marka reer miyiga ama reer magaalana waa ka soo horjeed ergaas compound-ka reer iyo miyi reer iyo magaalo ama reer magaalo marka lagu leeyahay inkastoo hadda neologismada la yiraahdo ereyada gadaal hadda cusub ay abuurmay macno kale loo bixiyay dadka qaar ku ka xaqana reer magaalo marka tarbe kula dagaalamay yaaba ka fiican reer magaalo waa qof ilbax weeyaan erga kale lamaanaha aan soo qaadanayo waa erey yani heer sare ah ereyada aad u jeclahay ka mid yahay lamaanayaasha waxa weeyaan madaxweyne waa compound ama compost wuxuu ka kooban yahay marka wuxuu ka kooban yahay madax iyo weyn buu ka kooban yahay madax lagu daray weyn madax waa maxay waa madaxan lagu daray weyn lagu daray waa marka madax waa noun waa magac weyn waa sifo marka magac lagu daro sifo madaxweyne magaca ka dhashay marka madaxweyne waxaan u naqaanaa qof dalka dhan xakumo oo madaxweynihii anaga u naqina laakiin ma ahan madaxweyne markaan iraahdo ruux madaxweyne kama aad fikiraysid madaxweyne markaan iraahdo ama lagu dhawaaqay waxaad ka fikiraysaan president Sheikh Sharif oo kale ama Obama ama maxaa la dhihi jiray any president laakiin anaga arag madax waxa marka la yaab leh sidaan isku darnay madax iyo weyn isku darnay madaxweynaha ka soo baxay waxaan isku raacnay Soomaali hadaan nahay aan u ogolaanay inaan u baxsano dalka ninka ugu sareeyo maamulo laakiin presidente in italiano president of English عربت أكالم مركا عربت وحي الرئيس الجمهورية الصومالية عربتان مركا لمن عربت الرئيس مدح رأس ساسا أماليني أنا كنا مدحوين يعني مدحوين هنا ساس مو مدحوين وحنقول جدنا مدحوين مركا لنا بريسيدنت ما هن شيخ شريف إنه ضد مدحوين ما هن
sheekh madax caadi oo sheekh shariif leeyahay ama Obama oo leeyahay ama qof kaas oo leeyahay marka laakiin compound-ka ayaa wuxuu yahay madax lagu daray weyn sifo waxa way madaxweynaha aalada qodob siinsa aadaas u dambaysa madaxweynaheena magaciyaal saas oo kale marka magacyada lamaanayaasha sarfaha lagu bartay morphology-ga lagu bartaa marka madaxweynaha marka waa ra'so waa marka waxaad arkaysaa marka waa allaala marka waxa madaxa anaga u soo qaadanay aan ku darnay weyntii oo madaxweynihiina oo noqotay haday madaxa laanta socodka dambiyada saas oo kale madaxa marka madaxii wali waa isticmaalnaa laakiin English language ka xataa waa leeyahay head teacher headkaas waa madaxii waa arag iyo teacher ma madaxa lagu taasku afafka adduunka saas yacjaba assalaamu calaykum marka wili laankii waa anaga furi doona wili maan dhamayn marka madaxweynihii baan hadda aragnay qaabka uu samaysan yahay oo ka magac sifo lagu daray marka waxaa jira marka eri kale oo la yiraahdo af minshaar marka af iyo minshaar marka isku darno af waa magac ballamaanaha sida uu samaysan yahay arka minshaarna waa magac laakiin gooni markaan u eegno mid walba macnihiisu leeyahay labadooda markaan isku darno oo isku qabano lamaana ay noqdaan af minshaar macna waxa loo yaqaana ruux qatar ah oo dadka kala goosanaya jaraya oo aan naxayn oo halaag ah oo afkiisa ma ahan minshaartii run ahay laakiin uu dhig af minshaar uu dhig ma weeyaan oo qatar ah weeyaan afka ku goosanaya adiga dhan marka af minshaara kamid ah marka lamaana waa marka arag labada eray markayna suuqa iskaga jiraan oo kaligood meelaha istaagan yihiin macnahaas male laakiin marka la isku qabto lamaana ay noqdaan oo af minshaarkii saas uu dhismo macna u sameeyay marka af minshaarka qodobkana saas uu qaata marka lamaanayaasha Soomaaliga waa badihiin anaga tusaale caawa soo qaadanay kale si aad u fahamtaa wixii hadda ka dambeeyay insha Allah ilaahay hadikiisa waxa kale soo qaadanay marka kacaan diid oo kale ergan waqtigii kacaanka buu baxay waxa way kacaan oo yani wax kacaya ah iyo diid ka soo fal marka waa yani waa magac lagu daray fal marka kacaan diid oo kale marka excellent kacaan diidka waxa soo qaadanay marka daba dhilif waa ergan la yaaba daba dhilif ergan la yaaba waa dhiliftaas wax dhilifka wax saas oo lulmana miya garanay daba dhilifkaas marka qudis waa daba dhilif waa dabo iyo wax dhilfa oo laakiin macnaha ay gudbanayaan labada eray markii la isku daro lamaanaha ka duwan ma aragtay hal markii loo kala qaado marka lamaanayaashu xagga cilmi afeedka marka loo eego assalaamu calaykum laynka alow calaykum assalaam waa kuma walaal waa sugu waa kuma magacaygu waa Axmed أحمد halkee baad ka soo hadlaysaa waxaan joogaa Switzerland magaalada Geneva Switzerland Geneva kaas ku soo dhawaa barnaamijkan cawada dhageysanaysa qaybtii hore caruurta iskala ayd waa ogeyd shaqaladii shibanayaasha adduuniga maartay markaad soo gashay dalka magacaada qayb sida loo qor dhibaato ma kala kulantay qaybta labaad miyaad ka heshay oo ah lamaanayaasha iyo af minshaar iyo madaxweyne iyo waxaan hadda ka sheekaynay ku soo dhawaa waa saxabta aad iyo aad maasnaatu waa horta barnaamijka in badan raadinaysa barnaamijkan hadda anigu luqadda waxaa bartay German du hast du gelernt auf Deutsch ja genau wirklich das gut auf German barta laakiin mushkilad jirto waxa ma taqaana anaga soo qaado isku qadmarin article farabdu leeyahay German das die 3 artikeln ein and eine indefinite ein article uu isbedela mar wuxuu noqdaa maxay sheeg accusative dative genitive magacyeel iyo waxyaabo soo noqdaa mar you got it marka hada wallahi ein kleines Kind ein kleines Land واضح marka Soomaaliya waxa weey midaan Soomaaliya hal kaliya waa Soomaaliya wuxuu leeyahay 7 qodob oo leeyahay halkaan aan ba ka sheegay habeen 7 qodob oo leeyahay 4 iyo 3 qodob waa hadda markii waa matala lacala ka soo qaad
ها ich gehe in die Mikros. ich gehe wohin Falhan. wohin Ich gehe in die Mikros. ich gehe in die Mitrof das ist wohin gehen Sie Die Frage nach wohin durch Mikros. laakiin indiidaas waa runtaa way maxaad ka wadaa marka hadda adi maqaal qodobadan af jarmalka gooni waale kuwa Soomaaliga haddaad barato ka waran marka Soomaaliga waxa uu yahay matqana eraydu way isku magaciyiin waa eraydii waxa arkay soo noqonaya waxaan isku eg magacaan waa haddaad tartiibtaada joornaalada inaad soo qaadato ama website-yada markaad gasho hal printer garaysa hal page akhri si careful si taxadar u fiiri maxaa qodob maxaa article waxa magac insha Allah ilaahay dikis waa la qabsanaysa Ahmed marka maxaad kala noo kordhinaysaa marka ma intaas ku weydiinay arintaas way markaas wuxuu ahay Ahmed oo nagal soo hadlay Switzerland oo aad yiri barnaamijkan waa midkaan muddo raadinayay Assalaamu alaykum عليكم السلام برنامج كان وايد قبطان عام ومالينا وكما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu faraxsanahay professor Wador inaan halkan ka fiirsado ma sha Allah waa nin la yiraahdo awliyo oo saaxiibka ma sha Allah awliyo ma sha Allah madad ya rasuulullah walaalkay la sharafka marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa fursadan dahabiyada anoo ka faa'iideysanaya waxaan aad ula socday berigi Universal TV aad afka Soomaaliga aad caruurta maaragtay ku bari jirtay waxaan hadda ka fiirsanayaa National Television waxaan dhihi lahaa jaamacadahana iskuulaadkana aan u kaambeyn garayno adigana waxaan ku dhigaa buugaagta la qorayo oo faraha ka badatay oo waxa macnaha sameeyeen maanta taada wax sameynaysa buugaag nagu qorsi iskuulaadka iyo homework clubka iyo dhan loo geeyo sababta qarankii 22 sano ayuu dunsanaa marka dadka rajada soo celin kara waxaan aaminsanahay inaad lafdabar u tood u horeyso ma sha Allah ma sha jazakallah awliyo London ka soo hadlaya maanta London baa joogta awliyo Soomaa professor London joogta oga ma sha Allah ka alxamdulillah aad baad maxaad kala ugu soo kordhinaysaa marka waa ku hambalyeynaya waa aad baan ugu faraxsanahay inaan macallimadaada xigmadda iyo waxbarashada ku dheehsan aan halkan ka dhuuqno waxaan rabi lahaa inaad buugaagta noogu qorto oo maaragtay aan caruurta afkii ka dhumay oo markii aad tiraahdo wax kelmad aad ku tiraahdo say wallaahida ku hadlahayo in maaragtay wallahi ku dhaaro inay bartaan aad baan u jeclaan lahayn waa ku hambalyeynaya professor waa taashay kaasi waa awliya oo nagala soo hadlaya awliya waa dhamaan waa taqaaniin waa hadana aad kaga sheekeynay ma ahan waa London oo jooga hadda aad iyo aad u maasay waqti uma hayno runtii awliya waa runtii waxa uu ka dhawaajiyay waa qoray buug yaraan qoray farbarashada caruurta la yiraahdo oo asagana la wada iibsaday kulligii la hadana mid kala soo socda insha Allah laga soo caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha kuna la ugu talagal Assalaamu alaykum hello magaca walaal Faaduma leedahay Faaduma walaashay intee joogtaa Faaduma kala leedahay Kansas Missouri American ka soo wacaya mama mia America Missouri ama Faaduma gacal ku soo dhawaa barnaamijka qaybtii hore ahayd xuruufta af Soomaaliga baataad iyo qaybtii dambe oo lamaanayaasha guud ahaan af Soomaaliya la isku yiraahdo hadda ka warraq waxa ku dhahay walaal waa suugay barasho wanaagsan walaal aad iyo aad loogu bagay far Soomaaliga ma sha Allah caruurta la baraayo ma sha Allah dadka waaweyn iyo caruurta dadkaan aqoonin way u baahan yihiin waa runtaa way marka waxa waaye dadka waaweyn waa fahmi karaan marka la yiraahdo alifbeetada la akhriyo iyo isku darka way fahmi karaan caruurta ma fahmi karaan waxa jeclaan lahaay alifbeetada 10 camal in loogu sheegay ilaa ay ka qabtaan waa runtaa way oo loo yareeyo alifbeetada markay ka baxaan shaqalada oo isku qabanayaan markaas la iskugu daro waa runtaa way
walaal waa ku salaamay dagaalkaas faadumo america ka soo hadlaysay waa runteed weeye mataqaanaa yani ilmaha in la isugu maaragtay loo waxaa la yidhi haddii yani rabitaan hadduu jiro meel lagu cararay meel lagu baxsado waa la helayaa marka asalaamu calaykum marka waxaa loo baahan yahay maaragtay ilmaha maaragtay in sidaas oo kale lala fadhiisto marka hore haddii ilmaha horta lala fadhiisto soomaaliya meel kasta aan joogno oo qurbahana ugu daran qurbaha meel kasta ha noqoto caruurta in maalin walba lala fadhiistaa oo la gaarsiiya lala sheekaystaa isgaarsiintaas caruurta waxay yani u noqonaysaa yani waxay helayaan kalsooni iyo inay wax kugu qarsadaan inay wax kugu sheegtaan inay ku maqlaan inaad wax isla dhegaysataan ayay caruurta ay helayaan marka waa runteed waa alfabeetada in la bara loo baahan yahay marka qaybtii weli waxaan ku jirnay qaybtii maaragtay lamaanayaasha salaam alo waa kuma asalaamu calaykum alo السلام عليكم. عليكم السلام. برنامجك حد صعد مع بروفيسور سؤال ويدينا. وكم هرت مقع ولال. أنا حسب هذا أمريكا كان كسر وعيا. ما أنت عود أمريكا واي أمريكا ما شاء الله حسب كسر دوا ساش هذا ولا ديار القوي. أيه وكم مقلع حسن. ألو. حسن مصيبته waxaan rabnay inaan ku weydiiyo lix caruur baa maraykanka ku dhashay lix caruura ku dhashay qori karno af Soomaaliga ugu fudud ma barnaamijka idinka baa ka soo daynaysaan TV mise حسن ku soo ma ku fahmin codkaada waa gogo'a xasan waxaan u malaynayaa xoogaa iska dami raad telefishinka iska gaabi kaasi xasan uu ahay bal codkiisana waxba laakiin marka waxaynu ku jirnay guud ahaan yani hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام magaca walaal waxaa la yidhahdaa cabdullaahi xasan waxaa ka soo hadlaya london cabdullaahi xasan london maanta waa soo furfurmaysaa qolodeeda cabdullaahi xasan kusoo dhawaa barnaamijka maasha allah maasha allah aniga kulley fikir ahaantii waxaan ku darsan lahaa caruura meesha joogto marka like for example marka like ABC ama cartoonska ay fiirsanayaan X to kale marka la dhahayo meesha lagu soo qoraa hadda ciyaalka waxay ku weydiinayaan xa maxaa waaye xa si u dhigmata ba iyo tad iyo xaada ma kala yaqaanaan waa runtii gabadha la joogo waaye gabadha qabo oo Soomaali fiican ma taqaano ayadana nafteeda xaada maxaa waaye ku leedahay waa runtii marka waxaan rabi lahaa iyo ba iyo ta iyo jaa marka ugu qoraysid buuradoo kale inta atleast la qaato oo la dhaho tan xa waaye tan ba waaye tan marka la isku darayo saan waaye fikrad ahaanteeda ma santa jazakallahu khayr ababa cabdullaahi xasan waa la heshay wallahi billahi horta waa ku faraxsanahay barnaamijkan hordhac leh waa hadda waa idinka idin ku soo jeedinaa hurdada idinka kicina barnaamijkaas waa soo socdaa ma aragtay ama waxaan adeegsan doonaa sabuura ama bot ama waxaan adeegsan doonaa ama editing system adeegsan doonaa ilmaha on ta marka baada soo baxayso balanbaalisan dhaha butterfly dhaha kulli waa soo socotaa insha Allah laakiin hadda barnaamijka inta cawada waxay tartaa cawada hurdada ka kacaysa waa kaasa cunugaada waxa lagu yiraahdaa hadan maxaa waay ha ma aqaan hajmiya saas kale laakiin adiga hoosta ogri baa leedahay haj assalamu alaykum halo assalamu alaykum wa alaykum salaam waa kuma walaal waxaan ka soo hadlayaa magaalada Holland magacaygu waxa la Cabdi Malik ku soo dhawaa barnaamijkan haye بروفيسور وحرب يا عروضة أنا لي مركب سومالي يا عواد بكوه فهمي واضح سيدو فضول مركب بروفيسور أيقن ويكتاونا يعني بل سيد فضول أو أن وفسر لشيء sida ugu fudud oo ilmahaada af Soomaaliga aad ku bari karto ayagana hadda way daawanayaan children caruuray kindan waxa la rabaa horta iskoolka markaad ka soo qoslayn waa ogahay iska gaabi geed kulli waa qoslayn caruuray waxa la rabaa maalin walba iskoolka markaad ka timaadaan ya foundation markaad ka timaadaan fadhiista ya dad waxa aaba dhaxda galo wuxuu idin akhrinayaa ba ta ja ha ha markuu dhameey wuxuu dilay libaax lion aniga iskana nafsi dooch Holland ma qal libaax waxa lagu yiraahdo waxa la leeyahay libaax af Holland waxa ku leeyahay libaax dawaco faras dameer hal Soomaalida intaas ma sameey karto markay odagii aba qosla wax shoona nafsidiisa
waxaa la rabaa maalin walbaa la rabaa everyday maalin ilaahay soo geliyo childrenka inaad yani la fadhiista ilmahaada maalin walba mar waxaad baraysaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to haye yaa yaqaano 10kii ay akhri karo aniga akhrina abaab dhaxay haye 1 2 3 4 5 todobo usax 8 9 10 11 waa baxay maalinta kale waxaad baraysaa maanta waxaan baranayaa maalmaha ya sabti axad isniin talaado arbaco khamiis monday donnerstag freitag edinistag saturday frashtansidas waxaa la rabaa marka in la helo laakiin sabarkii iyo joogtadii iyo maalin walba darsigaada abuuri karo waalidkaasi wuxuu ahaay cabdallah xasan maxamuud oo nagala soo hadlaya holland marka waxaa loo baahan yahay ma runtii waa garan karaa barnaamij aad u baahan tihiin oo idin taabanaya oo idin kicinaya oo waa languageka waay guri baad telefoon u diraysaa anywhere ama london meeshay noqotaa noqoto asalaamu calaykum aa leedahay telefoonka markaad dirtid markaas wiil baa kaa qabanaya 9 jir 7 jir markaas ku leh asalaamu calaykum markaas ku leh calaykum salaam aawe aabbahay korow yaalla aabahay korow yaalla cunugaas waaba dadaali waa fiican yahan qaba aniga dad stays upstairs oo ka wada tii ingiriisku turjumo waa fikir maskaxdiis ku shaqaysay aaba korow yaalla hooyo koray taalla ma xuma ya wax la'aan bay dhaantaa laakiin waxaa loo baahan yahay caruurta halala fadhiisto hallo assalaamu calaykum calaykum assalaam waa kuma walaal waxaan ka soo wacaya california magacaa walaal Timiro. Okay, Timiro, California, America. Kusoo dhawaaw barnaamijkan farbarashada caruurta ama naxwada. Marka hore aad baad u mahadsan tahay. Adaa mudan. Waxaan walaalo jeclaan lahaa haddii ay suurtagal noqonayso in maalinta sabtida ama axadda program at least because maalmihii kale ilmihii waa nalala haystaa oo iskuuladii ay busy ku yihiin. Waa tahay. In waqti 30 minutes haddii sida hadda saa usoo fariisatoo kale af soomaaliga loo soo saaro miraayada si aan ugu maaweelino okay sabtiga ama axadda hadday suurtagal tahay oo marka waxaana joogtaa california joogtaan miya ha california wow Timiro soomaalida ilaa alaskay degan yihiin okay maasha allah suurtagalna maalmihii kale iskuulay jiraan annagana 9 hours aan shaqeynaa waa marka saacadihian darsaynahan isku fiirinayna insha allah ilaahay idinkiisa bal sidii america waqtiga saacadaha ay caruurta xagga joogaan iyo africa inta joogaan barnaamijyada dad badana arrintaa codsada kaliga maahan Timiro waan ku dadaal doonaa insha allah ilaahay idinkiisa aad baa u mahadsan tahay taasi waxay Timiro ay nagala soo hadlaysay isha California America barnaamijkan Soomaalida aad buu u taabanaya haddii runta aynu u hadlayno waynu ognahay dhibaatada naga haysato xagga ilmihii 18 jir hooyadii u turjumi waaya GB mataqaana yani u raacay oo turjubaan loogu wacan ognahay oo wixii ka dhacay in la soconnaa yani caruurtii baa la isfahmi waayey hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaa walaal أحمد صديق axmed saqiir intaa kasoo hadlo haysaa waxaan ka soo hadlaa Oregon Portland Oregon Oregon ma sha Allah waxay ka waran barnaamijkan axmed saqiir waa ku maqlo haya hallo axmed saqiir waxaan malaynayaa Oregon dabaysho raacay waa ma aragtay waxaan u malaynayaa ma aragtay barnaamijka in aad dadka u taabtay oo loo baahan yahay salaamu calaykum hallo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعة ولا شيء. هلو مقعة ولا شيء. أنا واحد يدها ميمون. ميمون الكيبة كسوار. الكيبة كسوار ليسا. هولن هورت نصيف هدان لا يا حي. في قرنك هدان كسوار هدري. نصيب وين لا يا حي. هدان بالتي في قرنك ميمونة كسوار هذا نصيب وين بالله ها والله دقف الدنيا هاي ورتكو نيت في عناد شيك تعاود كهدش عادي dadki waxa ahay iskoolka graatiska ku soo bartay Soomaaliya waata ma sha Allah la grafika magaca Muqdisho ku dhashtay aniga waata ilbaxata waxa ku sheegaya dadki waxa ahay isbitaalada iyo iskoolaadka graatiska
ماما ما شاء الله ايه هو برنامج كان يسوق الهرت وقت عرير ميمونه وقت وعرير إيلاني هاي حالة تصل والجوبة أو يقل واي وحبرشة الصومالي وحاهين الماء وكل ما هذا وحنكور جنا وقت قاعد ما ربح وملاهي إذا عدى سوق الساسة وكل فضياه واضح إلهي وحن كتوغا شركة إنجليز كالصومالي ذا إلهي نبضي بوغا صوبحش آمين يا الله آمين يا الله حمرني إلهي نبضي الصومالي لك هلا ما كستان كجرنا هنكويري آمين يا الله آمين يا الله runteed waa maymuun taas waxayd maymuun oo nagala soo hadlaysa Holland ee waa daawad ya gargaraas siyaade oo maasanta maymuun gabar fiican ila niyadda ka hadasho waa runteed weeyaan markii waa waxba meel baa laga haystaa waxay jeclaan one day maalin inay tagto xamar ayadoo ma aragtay xamar dacad la iska socdo oo hawo fiican ay jirto ummadda naacal nafsada iska wada socdo oo kale xurriya hallo assalaamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ale magaca walaal عبد الناصر محمد مرة عبد الناصر الكيبات كسو هادليسا مريكن كمنسوتا كسو هادلايا مينيسوتا مريكن عبد الناصر كور كسو دوا برنامج واكو سلامي سلام الله horta marka hore waa ku salaamay سلام الله adiga dhalinyarada mala kula shaqeynayso oo shaqan baa wadaan ما شاء الله waxa anay ka dhigay kaliya barnaamijkan oo hadda aad wadid macnaha telefishinka waxa ka daawan karna ma aha caruur haysanaa waata waxaanu ognahay caruurteena inay ka aqli badan yihiin kuwa Soomaaliya ka imaaday oo macnaha Soomaaliya ku hadla waa runta muqaddana bartay way ka fiican yihiin ka aqli badan yihiin waata marka barnaamij hal week intaas qaatid oo si fiican meel uga shid marka iska soo duub cajaladii macnaha kan marka Soomaaliya daartida dowladda ugu samee laakiin mar walba waxaana cajalad oo anaka oo si fiican Soomaaliya inaan ugu badan karno inaan helno ما شاء الله إن شاء الله إلهي إذن كيسوا هلي إنسان ودذالينا وحنا اسكت ضيهر ضد كان كعينينا بل ضد أفكار تودورتو إنه أوروريون أوجانو ما شاء الله بدينا هي واحد لو ذي جعل هي عبد الله وقتي قاضني سأل لكن ودذالينا فكرة دسنا وقاضني وقاسي وحوا هاي عبد الناصر نقصد لا يشك من مينيابوليس برنامج كما عرفتي هو اللي يسوي إسكبدينهين وقركره أفكي هو ويان واحد وأفكيني ويان كي أتكو هذا ليسان كي أت وحكو قريسين كي أت كو سياسيين نيسان كي أت كم مقالة كل سيسان كي أت كو صعونيسان كي أت وحسكو جارسينيسان وأفكينه هنا عرورتين إنه واحد دوني ساسو كريان أو جارسيسان أت والله هذا الشيء المركب مركب على باهي أفكان وأفلو باهي هاي الو الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام واسبه واكو سلامي سلام الله واتما وعن كسؤال يا كندا اوتوا مقعه ولا وحال إذا سهر اوتوا كسو هادلي سهروين كا بدن ما شاء الله سهر اوتوا سهروين كا بدن واسبه انا waxaan ku bixinay waa bariyay waa runta waa isku mid way waasugi waa bariyay waata ku soo dhaw barnaamijka waasiga waxa warta program fiican baad wadaa laakiin anaga dhibaatadana haysata waqtigii baa kala duwan caruurtina hadda this time school bay wali jiraan ma hadda caruurtii qaar baa school jira hadda wali lixde waxay noo tahay kooda duurnimo iskoolkii waxay ka imaanayaan 4 saac kadib okay waa tahay marka dadka ingiriiska jooga jaaniska way nooga dheereeyaan telefoonka way naga hor dheereeyaan waqtiga way naga hor dheereeyaan waata marka waasiga horta waxaan rabaa inaan salaan yar gudbiyo marka hore yar la ahaw waata waa ka aqbalnay waasiga waxaan horta salaan u gudbinayaa madaxweynaha jooga Puntland Rahmaan shirkii fiicnaa oo nabadda ahaa oo halkaa ku handalgareeyay ummadda halkaas ugu timi horta aad baan ugu faraxnay waa kaa guurdoona ma sha Allah waxaan kaloo aad hambalyo fiican aan u dirayaa ninka la yiraahdo ustaad Axmed Naaji Sacad asagana waa istaahilay heesa fiican ba opera soo saaray hadda telefishin ka socdo wuxuu ka soo shaqeeyay anaga maslaxiyad runtii aniga maslaxiyad waan maqli jiray mataqaanaa laakiin habka wax loo sameeyo aniga waligay ma arag ma sha Allah marka wuxuu na tusay daalo fiican yadan buu ku sameeyay maslaxiyad buu soo bandhigay dhalinyaro qurux badan buu soo bandhigay heesa qiimo buu soo bandhigay anagu waxaanu leenahay hooyooyinka Soomaaliyeed haddaanu nahay waxaanu naga hantiyaa ama nagu leeyahay arrimo aad u wanaagsan oo giftiya ما بشاء عاد ياد باو ما سنتهي والقا وذا قارسينيا مصلحيتنا واسعني habka loo sameeyo ما شاء الله ما شاء الله غير لا كسيب داوديال waxaan u maleynaya ma kii ugu dambeeya
masla wada xumalinaya saacadihii baa xogaan ciriir nagu noqday ee barnaamijkii aan ku soo qaatay ee furitaankii xuruufta af Soomaaliga iyo qaybtii dambe oo ahayd lamaanayaasha af Soomaaliga iyo aragtidii dadweynihii ka soo hadlay meelaha kale dunida dacaladeeda inta ayuu ku ogyahay intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono farsamada waxa iska lahaa Leila iyo Boocame intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo